waxaan rabnaa in dadweynaha Soomaaliyeed ummadda aan u sheegno in maanta oo ay tahay 16 bisha Maarso 2020 aan xaqiijinay xaaladii ama keyskii ugu horreeyay oo coronavirus ah. soo aaday coronavirus xilli aan health sector-ka guud ahaan dalka uu yahay mid aad u nugul oo very fragile ah. maxaa xasuustaa hal maalin ya 4 qof oo emergency isku jiraan yani waxba uma dhaxaynin qofkaana hadda dhintay 5 daqiiqo ka soo wareegeen hadana qofkii kala dhintay isbedel weyn baa ku dhacay inta cudurkan corona yimi ganacsigii taasna waxa sababaysa maadaama meelo muddadii ugu horeysay la xiritaan la galay oo la xiray. We realized very quickly that it was critically important to get good information out to people as quickly as possible. Warbaahinta Soomaaliyeed waxay si weyn uga qayb qaadatay in bulshada Soomaaliyeed aan uga waranno halista uu leeyahay cudurka. dowladda Soomaaliya talaabooyinkii ay sameysay waxa kamid ahayd inay hawada Soomaaliya ay xirtay in diyaaradaha iyo socodkii laga mamnuucay laga bilaabo Arbacada in magaalada lagu soo rogayo bandow ka bilaabanaya 8 fiidnimo kuna eg 5 subaxnimo. waddanku wuxuu isaga jiray xaalad caadi ah oo looma diyaarsaneyn emergency-ga looma diyaarsaneyn maxaa la yiraahdaa xaaladaha degdega ah lama aqoon qaabka xanuunkan uu yahay ma jirin goobo dadka lagu karantiili karo ma jirin awood dadka lagu baari karo lagu ogaan karo xataa jiritaanka xanuunkan. wasaaraddu waxay samaysay dadaal weyn isbitaalkana waxaa loo asteeyay inuu noqdo isbitaalka coronavirus 36 sariir uu ahaa waxaa la gaarsiiyay ilaa 150 sariir waxaa loo diyaariyay oxygen beds waxaa la keenay shaqaalihii isbitaalka Digfir ka shaqeynaya oo tababarnaa emergency-ga. dowladda iyo guud ahaan iyo wasaaradda caafimaadka iyadoo ay horseed ka tahay waxay sameeyeen dadaal aad u xoog badan sidii loo xakameyn lahaa cudurka caabuqa maadaama uu ahaa cudur markaa cusub oo adduunka oo dhan walaac ku abuuray. dowladda Soomaaliya si ay arrimahaas uga jawaabto ugu horeyn talaabooyinkii ay sameysay waxa kamid ahayd inay hawada Soomaaliya ay xirtay in diyaaradaha iyo socodkii laga mamnuucay in la bilaabay wacyigelin loo sameeyay dadweynaha inay maaragtay kala fogaadaan waxaa la sameeyay maaragtay goobaha daryeel caafimaad sida isbitaalka Martini iyo isbitaalada kale oo maaragtay loo qorsheeyay inay wax ka qabtaan cudurka coronavirus. runtii bukaano badan oo soo dhacay xilligaasna waa lala tacaalay. We worked very closely with the government to have a comprehensive response plan that did not only address the health aspects of the pandemic, but also address the economic ramifications of the pandemic. And I asked all the UN agencies to repurpose their resources so as to address the new needs that the pandemic cast on everyone. marxaladii nagu adkeeda caqabadii ugu badnaa ee naga haystay waxay ahayd dhanka waalidka ama familada eheladooda ku jiraan isbitaalka si aan ugu qancino in yani waxaan u yahay cudur aad u daran haddii hadda inta imaadaan ay ka qaadaan haddana xanuunkii ay xaafadihii ay u sii gudbinayaan ee halistii intaan in ka sii badan ay noqonayso. wuxuu ku geeriyooday isbitaalka Martini
24 abriil aniga waan rumaysan waay geerida aabe anoo og oo gacanteyda ku jiray oo aan maxaa la yidhaahdaa qaaday oo qabriga geeyey oo soo aasay laakiin ilaa hadda maskaxdeyda waxaa ku jirta imagination ah inuusan macquul miyaa ma geeriyooda maxaa saas miya u dhoweyd yani dhaqaalaha marka la fiiriyo aad uu saameeyay ganacsatada yar haddii aan lahayd haddii aan lahayd ganacsatada waaweyn ee wax soo dejin jiray waxaa kaloo uu saameeyey dhinac walba sektor walba hadday noqon lahayd caafimaadkaas laftiisa oo shaqaalaha caafimaadku saameeyey waxbarashadii ayuu saameeyey wuxuu saameeyey maaragtay iskuulladii iyo dadkii oo dhan sanadka 2020 waxaa la filayay in uu sare u kaco dhaqaalaha Soomaaliya laakiin arrintaasi ayuu ragaadiyey waxaana hadda hoos u dhaco u maraya ilaa 1.5 inuu gaaro oo 1.5 uu gaaray hoos u dhaco taasoo ka dhigan macnaha in lacag lagu qiyaasayo ilaa ka badan 300 bilyan in uu maaragtay dhaqaale ahaan intaas cudurku uu jiray Soomaaliya ay ka luntay oo ka khasaartay ama ay ku baabaaday dhaqaalahaas runtii waxay u dhigantaa weliba maalin walba in macnaha 1 milyan ay Soomaaliya ka lunto Soomaaliyana waa dal aad faqiir oo wadamada adduunka aad ugu sabool maaragtay dagaalada ka soo baxay uu ku jiro run ahaantii waxyaalaha uu saameeyey ugu badan waxa ka mid ah xoolaha uu saameeyey oo sidii loogu talagalay hakad baa muddo kala galay laakiin hadda way soo noqdeen waa soo kabanayaan badeecadaha iyo gaadiidkii badnaa oo imaan jirayna run ahaantii iyaga naftirkooda muddo waxaa moodaa inuu hakad galay wax shaqooyin isbedel badan baa lagu sameeyey dekedda waxaa laga mamnuucay dadkii booqashooyinka ku imaan jiray oo tirada badnaa waxaa lagu soo rogay dadku inay face mask xirtaan talaabooyinka ugu horreeyay ee la qaaday waxaa ka mid ahaa meelaha weysada oo kale in la xiro masaajidada dadka macduurka oo midna cudurrada la nool dadka waayeelka oo kale ah isla markii in bayaan loo soo saaray barto idinka masaajidada imaanina dadka isaga shakisan ama iska dareema cudurkaasna ayadana saas oo kale fatwo loogu soo saaray inayna imaanin waxaan isku dayay in yani masaajidada dadku ay kala fogaadaan We realized very quickly that it was critically important to get good information out to people as quickly as possible. With the Office of the Prime Minister, we recorded radio and TV ads, both in Somali and in local dialects, and ran campaigns with singers, poets, and comedians on social media to show people how to stay safe. We provided staff and equipment for the government's emergency hotline and worked with the religious community, the police, the Somali National Army, and the prison service to get information and supplies like PPE and electricity generators where they were most needed. At the early stages of the pandemic, there was no testing capacity in the country. And so WHO used to collect the samples and ship them to Kenya. And eventually, in a very, very short period of time, we managed to have adequate testing capacity throughout Somalia. We started with only 3 PCR testing machines in Mogadishu, Garowe, and Hargeisa. But today we have over 24 testing facilities across Somalia. Also, the country didn't have a single ventilator at that time. And
I authorized the release of $2 million from the Somali Humanitarian Fund, and that enables us to procure 20 ventilators for the Di Martini Hospital, which was designated by the government as the primary facility for COVID-19 cases. dhegaystayaal meel nool dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo muujadii fm-ka siyeed dhabiisin lama magahartis warbaahinta soomaaliyeed waxay si weyn uga qayb qaadatay in bulshada soomaaliyeed aan uga waranno halista uu leeyahay cudurka warbixinada dowladda iyo wasaaradda caafimaadka ayaa si toos aan ugu xirnayn sababtoo ah waxa aad u badnaa wararka been abuurka ah iyo wararka kale ee fikradaha qaldan ee lagu faafinayay baraha bulshada marka laga hadlayo COVID-19-ka anagoo markaas dowladda Soomaaliyeed hay'adaha kala duwan oo ay ugu horeyso UNDP doorkii ay ka qaateen in ummadda Soomaaliyeed fariimaha la gaarsiiyo warbaahintan way ku gacan siiyeen oo ay kala shaqeeyeen heestan coronavirus horta fikirkeedaas waxaa la aamin aan saaxiib nahay oo fanaan weyn ah oo dadku wada og yahay oo yaqaanaan aarmaanta marka waxaa noo muuqatay in dadkeennii aanayba dhug u lahayn cudurkan inuu dilaa yahay oo dadku u dhiman karaan waxaad arkaysaa goobihii dadweynaha oo sidoodii iskaga buuxa dadka oo talooyinkii uga imaanayay khubarada caafimaadka aanan qaadanaynin kadib waxaas dhahnay niyo waxa ugu muhiimsan ee aad dadkaas heesta uga bilaabi kartaan waxa weeyaan in ay dadka waaweyn oo u nugul xanuunkan in la ilaaliyo iyo in qofka xanuunkan uu ku dhaco aanu qarsanin ee uu dadka la wadaaga dhakhaatiirta la wadaaga ka mid ah waxaa ka mid ah qofka inuu gacmihii uu dhaqdo oo uu afkii daboolo oo gurigiisa joogo aad weyn aan laga bartay coronavirus waxaa laga bartay si muhiim u tahay horta isku xirnaanshaha inay nafta badbaadiso mudnaantu caafimaadka ku leeyahay bulshada waa laga bartay runtii National and sub-national vaccine deployment plans have already been drawn in partnership with the government, and we are finalizing them as we speak. So based on these national and sub-national plans, the vaccine will be distributed to all federal member states. The pandemic has shown how much more needs to be done on healthcare, support for jobs and businesses, social protection schemes, and more. We know there will be either a second wave or another pandemic in the future. The time to prepare is now. lama dhayalsan karo weli xaqiiqtii cabsidiisu way jirtaa waxaa laga baqayaa inay soo baxaan muujado labaad oo adduunka dhan hadda uu ka qaylinayo oo dhimasho badan ay dhici karto sidaa darteed wacyigelintu way sii wadaa dawladdu waxaa dadka lagu dhiirigeliyaa inay kala fogaadaan isticmaalaan maaragtay inay afka xirtaan inay maaragtay sanka xirtaan The virus is still spreading. It is essential that people keep wearing masks, washing hands, and socially distancing so we can protect the ones we love.